kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinbaa saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaanba waxaan idin leeyahay soo dhowaada ku soo dhowaadana warbixin kooban ah oo aan ku soo qaadanayno maxaa ka dhacay maanta teendhada afisyoone ee saldhigga ama saldhiggii hore ee ciidamada cirka dalka Soomaaliya sida inta badan ama guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed ay la socdeen waxaa maanta amaba gelinkii hore ee maanta abaraha saacadda bariga Afrika markii ay ku beegneyd 9kii subaxnimo ka furmay saldhigga ciidamada cirka ee afisyoone shir ay foolka fool isagaga hor yimaadeen madaxda dowlad goboleedyada madaxweynaha dowladda federaalka ah ee waqtigiisii dhammaaday iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir shirkani oo ay beesha caalamku soo qaban qaabisay iskuna soo jiiday dhinacyada iyagu haatan ku loolamaya talada dalka Soomaaliya ayaa sida qorshuhu ahaaba waxaa furay oo shirka isagu daaha ka rogay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ama madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya waxaa xusid mudan xogtan aan idinla wadaagayo in ay tahay xog rasmi ah oo aanay jirin haba yaraatee wax ka khaldan balse sidii naloogu sheegay oo weliba mas-uuliyiin rasmi ku ahaa goobta ay noo sheegeen ma aha inay shirka ku jireen laakiin waxay ka mid ahaayeen mas-uuliyiintii la socotay mas-uuliyiinta halkaasi iyagu fooda isku daray ee shirka iyagu wada fadhiyey kuwaasi oo ahaa kuwii bannaanka ku sugayey intii ay doodu socotay kadib markii dooddu ay dhammaatayna mid waliba uu maaragtay mas-uulkiisii uu horay maaragtay usii raacay waa xog rasmi ah marka sidaa aan haddaba xogta ku helay amaba xogta naloogu sheegay maxamed cabdullaahi farmaajo isaga ayaa furay shirka kadib markii uu shirka furay uu soo dhoweeyey dhammaanba mas-uuliyiinta iyo madaxdii kala duwaneyd ee meesha ka hadlay waxa uu raacsaday aragtidiisa oo waxa uu soo jeediyey aragtidiisa waxaana aragtidiisa uu ku soo bandhigay in meeshan waxa loo yimid ama waxa lagaga hadlayaahi aysan noqonin wax maxaan ku idhahdaa dood iyo muran ama hadal keena ah wax ajenda ah oo kale oo lala imaadaana aanu jirin ee hawshu ay noqoto saxiix in qalinka lagu wada duugo dhammaanba mas-uuliyiinta meesha fadhida inay qalinka ku wada duugaan heshiisyadii amaba heshiiskii 17kii Sebtembar iyo kii ka dambeeyey ee 16kii February maxaan ku idhahdaa baydhabo lagu sheegay in uu yahay shir maaragtayto lagu heshiis lagu kabayo heshiiskii 17ka Sebtembar arrintaa markii farmaajo uu soo jeediyey waxaa gacanta taagtay labada madaxweyne maamul goboleed ee Puntland iyo Jubbaland waxaa hadalka ku horreeyey sida xogta naloogu xaqiijiyey سعيد عبد الله الدني مدحوينها دولة بنتلاند oo isagu ku qoslay hadalkii maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday siciid dani waxa uu sheegay in meesha ciyaar iyo sheeko aysan u imaanin iyo in wax loo sheego waxa iyagu ay samaynayaanna ay xaq u leeyihiin waxa ay diidayaanna ay xaq u leeyihiin balse waxa meesha loo yimid ee shirkan maaragtayto salka uu ku hayo in la abbaaro xaqiiqda ee aan maaragtayto layska daayo waxyaabaha kale waxa uu marka raacsaday aragtidiisa waxa uu soo jeediyey Saciid Cabdullaahi Dani laga soo bilaabo 8 February laga soo bilaabo 8 February dhammaan wixii dalka ka dhacay in miiska la soo dhigo isaguna uu wato una soo diyaarsaday una diyaar u yahay kow in laga doodo wixii dalka ka dhacay wixii ka dambeeyey 8 bisha ama bishii February kadib markii waxaa meel laysla saaro in loo gudbo ajendaha sida xogta la igu xaqiijiyey waxa uu Saciid Cabdullaahi Dani sheegay
in dalkan dhiig badan uu ku daatay in dhibaata ay dhacday in madaxdii qaranka Soomaaliyeed la weeraray in maxaan ku idhaahdaato dad shacaba iyo ciidamada ammaanku ay dhinteen in sharciyo la meel mariyey in baarlamaanka iyo madaxweynaha waqtigiisii dhammaaday labaduba ay qaadeen tallaabooyin sharciga liddi ku ah sidaa daraaddeed ay lama huraan tahay maanta iyo inta kale ee ay qaadan kartaba ha qaadatee in xaqiiqdu ay tahay in la wajaho dalkan waxay ka dhacay ee meesha aysan u imaanin buraanbur iyo hees midna arrintaasi markii uu dambeeyey waxaa ku xigsaday Axmed Madoobe oo hadalka uu siiyey maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa isna si kooban uu u sheegay haddii saxiix ay meesha u yimaadeen oo maaragtayto ay doonayaan inay wax saxiixaan amaba la dhihi karo kaalaya wax saxiixa in maaragtayto aysan talabatan ahaateen oo horeyna loo saxiixay wixii maaragtayto dhacayna ay dhaceen balse waxa la doonaya ay tahay in xaqiiqda lagu soo dhawaado maxaan ku idhahdaato isagu wuxuu ku darsaday sida xogta laygu sheegay in farmaajo talada bannaanka uu halkaa ka istaago ee shirka layskaga dhex doorto guddoomiye shirka guddoomiya maxamed cabdullaahi farmaajona xaq u lahayn inuu guddoomiyo shirka intaa waxaa ku darsaday sida lai xaqiijiyey axmed maxamed islaan oo markii uu taageeray soo jeedintii saciid cabdullaahi deni ku darsaday isagu in loo baahan yahay shirkan in lagu doorto guddoon cusub amaba guddoon sababtoo ah mandate iyo waqti Soomaaliya ay u dooratay maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed ayaa jiray xilligiina waa la soo dhaafay hadda waa in aan inagu shirka isaga dhex doorannaa guddoonkii shirka hagi lahaa haddii la rabo isaga ha la doorto haddii la rabo maxaan ku idhahdaato qoorqoor ha la doorto cumar finish ha la doorto deni cidii la rabo ha la doorto ama bannaanka ha laga keeno laakiin shirkan cid aan maxaan ku idhahdaato doorannay waa inay hoggaamiso sababtoo ah maxamed cabdullaahi farmaajo mandate ma haysto ama innaga aan siino ama aan u diidno halkaa markii ay hawshu gaadhay waxaa weeyaan waa xanaaq baa ka dhacay meeshii hadalladii baa laysku taagtaagay waxaa hadlay raggii kale ayaa iyaguna hadlay nin walba aragtidiisa ayuu markaa meesha ka dhigtay waxa ay doodii ku wareegtay adigu madaxweynayaasha kale madaxweynayaashii kale nin walba aragtidiisa ayuu dhiibtay kadib ayaa mar kale waxay dib ugu noqotay maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha dalka Soomaaliya ee waqtigiisu uu dhammaaday markii uu maaragtayto hadalka ku noqday waxa uu soo jeediyey in meesha lagu fadhiyo maxaan ku idhahdaato mas'uuliyiin haddii aragtidu ay kala duwanaatana waxa uu soo jeediyey waxa lagu kala baxay in ay cod yihiin oo ay tahay in cod la qaado okay oo codka loo qaado aragtida labadan nin ee xagjiriinta ah iyo aragtida maxamed cabdullaahi farmaajo yacni inta kale hadday tahay rooble hadduu yahay cumar finish inta u dhaxaysa iyagu wax aragtiya ma laha meesha way u yimaadeen kuraasta dul saaran camal yay ahaayeen okay waxaa la yidhi marka maxamed cabdullaahi farmaajo markii hadalkii iyo doodii laysku celceliyey ee laysjiijiiday ayaa waxa uu soo jeediyey cod aan u qaadno yacni qaabka waa in maxaan ku idhahdaato aan ku qanacno sida maaragtayto ay wax u socdaan saciid cabdullaahi deni ayaa ku soo noqday mar kale waxaa isna uu marka doodii sii geliyey haddii meeshan cod la qaadayo inagu sharciya ma ansixinayno waxa aan meesha u fadhino ee aan ku nimid ee aan u joogno waa heshiis ee in gacan la taago oo aragti laysku muquuniyo oo la yidhaahdo maxaan ku idhaahdaato gacanta taaga garowgan gacanta ka soo taagi lahaa buuri haddii ay maaragtayto ay tahay inaan gacan taag arrintanadu ay ku xidhan tahay marka meeshan heshiis baa looga baahan yahay heshiis siyaasiyaha loo baahan yahay anigu dhihi mayo maxaan ku idhahdaato kursiga bannaanka ka fadhiiso ama maaragtayto
shir guddoon maaragta aan iska doorana dhimayo oo waan maaragta waan kugu ixtiraamay laakiin wax la yidhaahdo maxaan ku idhahdaa gacantaag meesha ma taallo waxa aynu ka doodayno ajendaha bal haynoo dambeeyo ajendaha aynu ka doodayno ha inoo dambeeyo laakiin maanta waxa miiska inoo saaran waa in uu noqdaa dalkan 8 February wixii ka dambeeyey maxaa ka dhacay intaasaan taagnahay wixii intaa ka baxsan aniga bannaankan ka taagnahay madaxweynaha hore ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo warkii waa liqi waayey waa xanaaqay cod dheer buu wuxuu ku yidhi maxaan ku idhaahdaato aniga aragtida aan aaminsanahay ee ah shirkan in uu noqdo shir lagu saxiixayo heshiiskii 17 Sebtembar kaasoo inagii soo saxiixnay kaa waaba la saxiixayba inta alla kii 16 February waa maaragtayto hanagu wareerinin la gaadhay 17 November iyo 17 September iyo maxaan ku dhahaa waxaas annaga meesha maana imaanin axmed madooba markaa yani hadalkaa dhahaya kuwa waan saxiixnay meeshanna waxa weeyaan waxa aan u joogno ma aha cod la qaado ee cod yaa meeshan haddii wuxuu ay ciyaar tahayna tini waliba gurigiisii ha aadiyo goobtu ka yimid haddii kale mustaqbal ummadeed weeye waxa aan ka hadlayno ee aan meesha u nimid ee masiirka ummaddan ina sugaysa ee ay imaarataayto innaga inoo afduuban 8 qof innagoo ah waa in wixii inaga batana aan dib ogula noqono shacabka wixii inaga tabarteenna aan halkan kaga go'aan gaadhno farmaajo uma joojinin waxba kama soo qaadin maxaan ku idhaahdaato waa lagu kala maaragtay wuxuu yidhi intii aniga aragtida igu raacsan ee qabta in maxaan ku idhaahdaato shirkan uu noqdo shir saxiix mar labaad lagu saxiixayo 17 Sebtembar wixii maaragtayto aanu soo saxiixnay iyo kii ka dambeeyey maalintii 16 February ee shirkii wasiirada maxaan ku idhaahdaato baydhabo intii ugu raacsanay gacanta la taagay gacanta markii la taagay dee waxay noqotay axmed madoobi iyo deni oo indhaha taagaya in intii kale ay gacanta taagaan waxaa la yidhi caqligal maaha waxaa hubaala beesha caalamka ayaa markaasi gashay goobta waxaa la yidhi waxaani suuragal ma aha erga beesha caalamka ka socota ayaa markiiba timid la yidhi arrintan iyo waxaani suuragal ma aha waa isu nimid haddana waa kala ordaynaa ama maaragtayto waa kala dhaqaaqaynaa mush macquul waxaa loo baahan yahay masiir ummadeed ayaa meeshan yaalla in aad ka maaragtayto si dhab ah aad uga doodaan eeda kale cod haddii la qaadayo ama cod laysku muquuninayo ama ay jirto maxaan ku idhahdaato wax la ansixinayo dee arrintu sidan ma ahatin madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa la yidhi caadi iska dhig meeshan heshiis baa la doonayaa ee lama ansixinayo qodobo maxaan ku idhahdaato dastuuriya iyo qodobo maxaan ku idhahdaato maaragtayto sharciya ama xeer hoosaad lama ansixinayo dood heshiis baa yaalla la rabaa in la gaadho heshiiska la rabo in la gaadhana waa mid salka loogu dhigayo amaba uu asaas u noqonayo heshiiskii 17 Sebtembar mar kale ayaa marka loo kala dhaqaaqay inta la isku celiyey yani marka la qaaday codkii dhinac buu u batay boqolkiiba yani 80 bay noqotay boqolkiiba 20na waxay noqotay dhinacii kale noqdeen madoobi iyo deni bay noqdeen intii kalena dee 6dii kalena dhinac bay isu raaceen mise 5 iyo wax noocaas wixii adigu ay ahaayeenba intoodii kale dhinac bay isu raaceen okay markii intaas dhinac isu raacday beeshii caalamka meesha timid waa la isku maaragtayto hadalkii si fiican baa adigu meeshii looga hadlay waxaa la yidhi isku noqday waa la isku noqday markii la isku noqday nin walba caagadiisa biyaha isagaa soo qaatay cajaa'ibta meesha taallibaa waxay ahayd labadan xarfaan ee meeshan joogay maxaan xalane deganaa waa madoobi iyo deni nin waliba caagadihiisa biyaha horey buu usii qaatay maxaan ku idhahdaa moji cadde canjeere iyo rooti inay wateen
oo waxay ay maartay kulli u baahnaayeen jeebadahooda hore u sii qaateen qoladan waxoodii baa loo keenay oo waxoodii bay meeshii adigu waa la isku soo noqday birif kadib markii la isku soo noqday halkiiba qolo waliba ka mis Abdullahi Farmaajo madaxweynaha waqtigiisii dhamaaday ee Soomaaliya waxa uu yiri annaga waxaan doonaynaa waxa weeye inaan dib ugu noqono kaad arooriyaad ma aha maxaan ku yidhaahdaa qorqor ayaa isna halkaasi ka soo galay oo yiri niman yahoto annaga waxaan doonaynaa annaga markaan leeyahay codka saddexdanadan iyo maamulka gobolka Banaadir baan ku hadlayaa maxaan ku yidhaahdaa labadan kalena iyaga iswata ninka la yidhaahdo Farmaajo iyo Roble laakiin gobolka Banaadir maxaan ku yidhaahdaa Hirshabelle Koonfur Galbeed iyo Galmudug codkoodana ku hadlay waxaan rabnaa annaga hanawaalina Abdullahi Farmaajo waa madaxweynaheenii aan ku daba faylo muhiimadu waa intaa aniga aragtidaydan ka hadlayaa wiil codkan aan ku hadlayaa mas'uuliyiintan codkooda aan ku hadlayo waxaan idin sheegayaa annaga waxaa noo muuqata dalku inuu doorasho galo horeyna waan uga heshiinay oo tii aan uga heshiinay in lagu socdo codka madaxweynaha waxaan saa u leeyahay oo aan maxaan ku idhaahdaa saa u leeyahay wax isaga dhaamaan jirinba yacni taageero aan caadi ahayn innaba hala ekaatee taageero aan waxaan u aragnaa maanta marxaladda lagu jira qabyo ninkeedaa dhammaystiradii xasan sheekh weeye ee waxaan idin leeyahay meesha maxamed cabdullaahi farmaajo maanta uu soo gaarsiiyey Soomaaliya isagaa ka sii wadi kare aynu taageero oo aynu garab istaagno wixii khilaafa maxaan ku idhaahdaa gaarana hawshaasi aynu dhammaysanno innagii baa hadda isla joogna ceeb bay inugu tahay kan bay inugu tahay keer bay inugu tahay doorashadana si cadaalada aan u qabanno maxaan ku idhaahdaa markaa kale ee bannaanka joogay ama maqal la yidhaahdo ama midowga musharaxiin ha noqdaane doorashada waxay xaq u leeyihiin sidii markii Farmaajo tartanka uu galayay uu u soo galay nin walba isagoo iskii u socda inuu yimaado niman inta tunka idinku soo qaadaan aad sanka naga gelinaysaan yaysan noqonin Soomaaliyana yaan burbur loo horseedin wuxuu ku cadeeyo meeshii uu ka sheegay in haddii wixii burburaha yimaada bani iyo madoobow idinka dushiina ay tahay inta ka badan anaga wuxuu yiri waa samirkii waa naga dhamaanaya oo waa maaragtay idin dul qaadan mayno halkaas markii la isla maray haddana waa la isku maaragtay raftay hadalkii baa lagu raftay wax walba natiijada shirka yaa marka muhiim ah inaan ku soo dhawaado natiijadii shirku waxay noqotay ajandihii shirku waxay noo dambeeyay maxaan ku idhaahdaa waxaas iyo waxaas berri aan ka dhigano haye maxaan ku idhaahdaa dalkan wixii ka dhacay berri aan ka dhigano xagga sida aan yeelno berri aan ka dhigano shirkii wuxuu ku soo dhammaaday berri aan ka dhigano calaa ayati xaal dhammaanba qodobada ka soo baxay shirkii maanta waxa ay ku soo dhammaadeen oo ay maaragtay ku soo afjarantay berri aan ka dhigano marka waa natiijada shirkii foolka ahaa ee maanta dhex maray maxaan ku idhaahdaa madaxda dowladda federaalka ah iyo madaxda dowlad goboleedyada markaan leeyahay madaxda dowladda federaalka ah madaxweynaha waqtigiisii dhammaaday ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ah ayaan ula jeedaa madaxda dowlad goboleedyadana kuwa mandate haysta ayaan iyagana ula jeedaa muhiimadda ayaa marka waxa ay tahay in wax ka soo baxay ama wax la isku waafaqay aanay jirin haba yaraate waxa lagu kala booday ama muhiimaduna min bilow ilaa iyo dhammaad marka laga reebo cagadihii biyaha ahaa ee ay wateen waxaa shirku uu ka dhammaan waayey aan saxiixno ama hala saxiixo maxaan ku idhaahdaa wixii heshiiskii baydhabo iyo kii 17 September iyo ma aha dalka wixii ka dhacay 8 February wixii ka dambeeyay ayaa miiska anaga noo saaran taasi oo aan meel la saarina wax kale oo aan ka hadlayno iyo wax kale oo meeshan maxaan ku idhaahdaa yaalaahi ma jiraan
inaan gacan taagno iyo in aan maaragtayto ka sheekayno maxaan ku idhahdaa xaafadana maaragtay imaanay waxaan u imaanay masiir ummadeed meeshan in lagu jaangooyo muhiimaddu waa intaasa labadaasi qodob ayaa xaggana ay la yimaadeen labada qodob haddaan mar kale ku celiyo waa qodobka ah in aanay jirin dood iyo ajende laga wada hadlo ee xaalku uu noqdo oo keliya maxaan ku idhahdaato in la saxiixo heshiiskii 16 September ee wasiiradu ay ku gaadheen Baydhabo 16 February ay ku gaadheen wasiiradu meesha la yiraahdo Baydhabo iyo in maxaan ku idhahdaato laga doodo wixii ka dambeeyay 8 February labadaasi qodob ayaa la isla dhaafi waayay wax walbana berri baa loo raray suuragalna ma noqon karto yacni wixii maanta la isku mari waayay berri in maaragtayto ay noqdaan wax si fudud lagu moodo halkaasi marka ay marayso meesha ay caga dhigato iyo maaragtayto kolba halka ay sula dullaanto amaba dhanka ay u badato ayaynu arki doonaa Jubbaland iyo Puntland waxa ay diideen oo ay gaashaanka u daruureen keliba wax la yiraahdo cod hala qaado oo tiro hala isku maro sababtoo hala isku maaragtayto lagu jaangooyo oo qodobkii aan isku mari weynaba cod ha loo qaado kadibna dhinaca uu codku u bato maaragtayto ansax ha noqoto taa waa ay diideen oo waxa ay yiraahdeen hadaan codaynayno waxaan ka soo codayn lahayn halka iyo Garowe iyo Kismaayo yaan ka soo codayn lahayn ayaa maaragtay warkooda ugu batay siday dooniba ha noqotee meel kaste oo aad joogtaanba waxaan idin leeyahay cawaysin wacan oo wanaagsanna galad xasanna oo daaha gadaashiisa idinkala hadlaya ayuu kani ahaa haddii allaha awoodda lihi ogolaadana kolba waxa ka soo kordha maxaan ku idhaahdaato shirkaasi ila meeraysadaa noqday waa halkan ayaynu kusoo gudbin doonaa innaga oo si dhab ah u maaragtayto raad raaci doona kolba cidda ugu macquulsan ugu wargalaysan mas-uuliyadda aan maaragtayto dadka aan u gudbinayno aan maaragtayto ku kalsoonaan karno warkooda guusha ugu weyn ee dhinaca Villa Soomaaliya iyo taageerayaasheeda waxa ay noqotay sida uu ka shanqariyay wasiirka warfaafinta dawladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya ama wasiirka xilgaarsiinta xukuumadda federaalka ah ee dalka Soomaaliya dhinaca warfaafinta u jooga ayaa waxa uu inoo sheegay guusha ugu weyn ee dawladdu ay gaadhay taasi oo ahayd in Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya uu maanta guddoomiyey shirkii teendhada Afisyoone ka dhacay waa guul taariikhi ah oo soo hoyatay maxaan ku idhahdaa nabad iyo nolol iyo taageerayaashooda sidoo kale waxaa meesha uu ka saaray in uu sheego amaba uu xaqiijiyo qaabkii loo maaragtay qodobadii iyo sidii loo kala booday iyo doorkii beesha caalamka dadka la yiraahdo ee xalana degan ama fadhiyaahi ay ku yeesheen iyo kala boodkii sidii loo kala booday ee maaragtayto markii dambana xaaladda iyagu ay u dejiyeen ma aanu sheegin laakiin waxa uu sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa sida isaga ay la tahay uu isagu shirka guddoomiyey shirka furay kadibna la isku mari waayay qodobadii la isku mari waayayna dib loogu dhigay maalinimada beriya Jubbaland iyo Puntlandna waa suuragal in maaragtayto si rasmi ah ay uga hadlaan xogtan maaragtayto aan halkan idinkula wadaagayna waxa weeyaan waa xog rasmiya oo maaragtayto goob joogayaal dhahayo intii 8 meesha fadhiyay mid kamid ah ayaa maaragtayto aan ka soo xigtay ma dhahayo amaba aan ka wareystay amaba iiga warramay ma dhahayo laakiin 8daas kuwii ku xigay ayaan maaragtayto ka soo xiganay oo nala wadaagay waana mahadsantihiin meel kaste oo aad joogtaanba waxaan idin leeyahay habeenku ha idiin wacnaado waa galad xasan oo daaha gadaashiisa idinkala soo hadlaya kolba wixii soo kordhana haddii allaha awoodda lihi ogolaado halkan ayaanu ku wadaagi doonaa waxaan alle ka rajaynayaa in uu isu soo jiijiido boggoodana uu burcad isu mariyo heshiis ummadda Soomaaliyeed ay ku wada faraxdana in ay isla gaadhaan oo beel caalam iyo cid kale midna aysan dabada ka riixaynin iyagu inta is jiijidaan aakhirka ay ku heshiiyaan tan iyo is arag maqal dambe fi amaaniya Soomaali wadankeena waan difaacina waan difaaci doonaa
دفاعنا واندفاع دونا صومالي وطنكينا واندفاعنا واندفاع دونا واندفاعنا